صاحب هذا بيجك كعصبتهي نديريجي وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت وحن قاضنا إن عشر كانوا حكوس سابسين هدي إلى هاي هذا نوعية بعرمياش اللي يقانو NBK نوعية ذا أيام برندون هدي إلى هاي هذا سوقيا وحالة هلا نوعية كالدوان oo ah bacrimiyeyaasha isku dhiska ah ee loo yaqaano NPK waxaa laga soo gaabiyay intu waxay u taagantay curaha la yiraahdo nitrogen oo asagu neef ah bina waxay u taagantay curaha la yiraahdo phosphorus oo asagu birma ah iyo curiyaha K oo laga soo gaabiyay curiyaha loo yaqaan potassium oo kamid ah biraha urkoobaad ee kalgalka curiyayaasha saddexdani waxay ka mid yihiin curiyaasha waaweyn ee loo yaqaano macronutrients ee dhirta lama huraanka u ah tiro badanna looga baahan yahay curiyaashan cadeymaha hoose ama cadeymaha aan sheegi doono waa suuro dhaweyn lambarada aan ku isticmaalnay tusaalayaashana way ka duwanaan karaan bacrimiyeyaasha suuqa yaal macnaha lambarada aan isticmaalayna tusaalayaasha waxaa dhici karta kuwaas ka duwan inaad suuqa ku aragto marka muhiimadan lambarada oo isticmaalnay inta badan waxay tahay inaan fahamno ujeedada laga leeyahay guud ahaan bacrimiyeyaasha NPK waa 8 nooc oo kala ah NPK waa 8 nooc oo kala ah NPK isleek waxaan ula jeednaa nitrogen-ta phosphorus-ka iyo potassium-ka ku jira ayaa isleek waxayna noqon karaan 10 nitrogen oo 10 ah potassium phosphorus oo 10 ah iyo potassium oo 10 ah ama waxay noqon karaan nitrogen 20 bay noqon kartaa ama phosphorus ku wuxuu noqon karaa 20 potassium kuna wuxuu noqon karaa 20 macnaha saddexda xaraf ee NPK ayaa saddexdaba tira isku mid ah ayaa ku jirta fertilizer-ka ama bacrimiyaha saddexda lambarada isticmaalnay oo ah 10 iyo 20 kaliya maahan waxay noqon karaan 5 waxay noqon karaan 6 waxay noqon karaan 9 waxay noqon karaan sida sawirka nooga muuqata 10 iyo 9 bay noqon karaan waxaana loo qoraa sida hoos nooga muuqata maxaa yiraahdaa 10 iyo 20 19 macnaha saddexda lambar oo isku xiga ayaa isla eg oo lambara isku mid ah marka waxa la yiraahdaa NPK-daasi way isla egtahay saddexda lambar waxay doonaan ayay noqon karahayaan waxa muhiim ah marka inaad fahamtid lambarka koobaad wuxuu u taagan yahay nitrogen midka ku xiga wuxuu u taagan yahay phosphorus oo waa B midka saddexaad wuxuu u taagan yahay potassium sida daraaddeed lambarka markaan magacaabayno curiyaa markaan magacaabayno fertilizerska waxaan dhahaynaa NPK soo ma ahan lambarka koobaad waa N ka ku xiga waa B ka ku xigana waa K waana sida u fahamtaa weeyaan mar walba labo NPK nooca labaad waxa weeyaan nitrogen-ta ayaa ku badan waxayna noqonaysaa nitrogen-tu tusaale ahaan 30 ku marka waa nitrogen 20 waa phosphorus 20 ka xigana waa potassium saddex nooca saddexaad oo NPK-da ah waxa ku badan phosphorus-ka lambarka dhexa badan marka waxay noqonaysaa 20 taa macnaheedu waa maxay lambarka dhex mar walba wuxuu u taagan yahay phosphorus-ka ayaa badan afar NPK potassium-ku ku badan yahay NPK-da potassium-ku ku badan yahay waa lambarka ugu dambeeya ayaa mar walba wuxuu u taagan yahay potassium waa K-dii weeyaan asaga ayaa badan marka waa 20 tusaale ayaan ula jeednaa mesela midka nitrogen-tu u badantay wuxuu noqon karaa 10 ama wuxuu noqon karaa 10 way dhici kartaa marka 10 hadduu noqdo ugu horeyso 10 waa nitrogen 0da ku xigtaa waa phosphorus 0da loo kale ku xigtaana maxay noqonaysaa potassium macnaha labada kale meesha ma yaalaan meesha waxa ku yaala nitrogen ay noqonaysaa marka qaybta koobaad oo fertilizerska NPK afarta nooc ugu horeysa waxa weeyaan mid isla eg mid nitrogen ku badan tahay mid phosphorku ku badan yahay iyo mid potassium ku badan yahay qaybta labaad oo isla NPK-da ah waa intii hadda aan soo aragnay plus lagu daray TE ereyga TE
wax badan baad arki doontaa wuxuu u taagan yahay trace element oo ah curiyaasha tirada yar looga baahan yahay gadaal ay noogu imaan doonaan haddii ilaahay yiraahdo marka midka shanaad amba NPK nooca shanaad waxaan dhahaynaa waa NPK oo lagu daray TE oo ah trace element marka way isla eg tahay waxayna noqonaysaa مثلا 19 anaha saddexda element way isla yihiin laakiin saddexda element maxaa la jira TE ayaa la socota TE waxay u taaganahayna isleedeeda dambe ayaan ku sharaxi doonaa 6 NPK nooca lixaad waa NPK oo TE lagu daray waxaa ku badan nitrogen-ta ku badan nitrogen-ta ayaa ku badan tusaale ahaan waxaan qaadanay N oo 20 ah B oo 10 ah iyo K oo 10 marka waxay u qormaysaa sida kaaga muuqanaysa sawirka NPK-da sida kaaga muuqanaysa 20 10 10 ayay noqonaysaa ama 20 10 10 nooca toddobaad oo NPK-da ah plus ET lagu daray fosfoorka ayaa ku badan sidan oo kale ayay noqonaysaa 10 konton 10 macnaheedu waa maxay 10 hore waa nitrogen kontonku waa phosphorus 10ka dambana waa potassium nooca sideedaad oo NPK-da ah waa NPK-dii oo lagu daray TE oo potassiumka ku badan tahay sidan oo kale ayay noqonaysaa 13 7 40 macnaha N-tu waa 13 B-du waa 7 K-du waa 40 marar badan waxaa dhacaysa marka lagu qorayo weelka dushiisa marka lagu qorayo sidaan oo kale ayaa loo qorayaa 13 7 40 plus ET sidan ayaa loo qorayaa marka automatically markaad lambaradan aragto waa inaad xusuusataa NPK ka ugu horeeya waa N ka ku xiga waa B ka ku xigana waa K marka fertilizerskan waxaa ku badan potassiumka ku badan fiiro gaar ah primary micronutrient waxaan markaan ka hadlaynay curiyaasha nafaqada ee dhirtu u baahan tahay waxaan u kala qaadnay laba qaybood qolo waxaan ku sheegnay macronutrient qolana waxaan ku sheegnay micronutrient macro waa kuwa tiro badan looga baahan yahay microna waa kuwa tiro yar looga baahan yahay waxaa loo yaqaanaa trace element oo TE kuwii loo soo gaabinayay wey marka qaybtan macronutrient-ga ah ayaa laba u qaybsanta qayb waxaa la yiraahdaa primary macronutrient qaybta asaasiga ah waxaa weeyaan NPK na baka nitrogen phosphorus iyo potassium ayaa waxaa la yiraahdaa primary macronutrient secondary macronutrient waxay noqonayaan iyaduna dhirtu way u baahan tahay tiro badan bay uga baahan tahay laakiin tiradaasi way ka yartay tirada qoladii hore ayagana waxay noqonayaan curiyaasha kala ah magnesium calcium iyo sulfur lixda elementi waxaa la isku yiraahdaa macronutrient saddexda hore waa primary saddexda dambana waa secondary qaybta saddexaad waa micronutrient ama TE oo laga soo gaabiyay trace element oo ah curiyaasha yaryar waxaan ugula jeednaa dhirtu waxay uga baahan tahay tiro aad u yar bay uga baahan tahay waana kuwan soo socda maxay kala yihiin waxaa ka mid ah manganese waxaa ka mid ah iron ama xadiid waxaa ka mid ah copper waxaa ka mid ah zinc waxaa ka mid ah boron waxaa ka mid ah molybdenum waxaa ka mid ah chlorine waxaa ka mid ah nickel iyo wixii la mid casharkeenna kan xiga wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala sidee loo isticmaalaa nafaqooyinka dhirtu u baahan fertilizerska ama bacrimiyaasha aan casharada hore oo dhan kaga soo hadlaynay sidee loo isticmaalaa insha allahu tacaala waxaan ku qaadan doonaa casharkeenna soo socda aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan ku leeyahay haddii aad wax uun ka faa'iiday fadlan ha iloobin inaad subscribe tiraahdid oo share tiraahdid oo la wadaagtid asxaabta kale si dad badan uu gaaro oo ay uga faa'iidaystaan mar labaad baan idin mahadcelinayaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh